kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena bilan wararka aan idiin haynana waxaa kamid ah faahfaahin laga helayo qasaaraha dhimasho iyo dhaawac qaraxii Muqdisho ka dhacay al-shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka ismiidaaminta ahaa ee maanta Muqdisho ka dhacay maamulka gobolka Banaadir oo shacabka kaga digay ka qaybgalka banaanbax la qorsheynayo in bari lagu qabto magaalada Muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda amniga oo soo saartay warqad fasax ah oo lagu ogolaanayo banaanbaxa Muqdisho. intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada wararka aan idin hayno daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan boggeena like saar sina share garee muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo la sheegay inuu geystay qasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay wadada 21 Oktoobar ee degmada Waabari kaas oo dugtiisa laga maqlay qayb kamid ah degmooyinka Muqdisho qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo lagu weeraray gaari ay wateen saraakiil ka tirsan hay'adda UN-ka xilli ay marayeen meel u dhow wadada Elboorka ka baxda ee wadada 21 Oktoobar goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen ilaa 4 ruux oo isugu jiray askar ilaalo u ahayd saraakiisha ka tirsan hay'adda UN-ka iyo sidoo kale dad shacab ah oo wadada marayay oo la sheegay in qasaaraha oo soo gaaray muuqaalo laga soo qaaday goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa muujinayay gaari nooca raaxada ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay waxaana isbitaalada qaar ee Muqdisho la geeyay qaar kamid ah dhaawacyada laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raajoogaan cidii ka dambeysay weerarkan iyo sidoo kale xogtiisa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo warbaahinta kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in ay marayeen goobta meel aan ka fogeyn xilliga qaraxa uu dhacay isla markaana waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir sidoo kale ay ka digayaan ka qaybgalka dibadbax la qorsheynayo inuu ka dhaco maalinta bari ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoo sheegay in la filayo in sidoo kale dadka aysan ka qaybgalin dibadbaxan waxa uu sheegay inay muhiim tahay sugidda amniga waxa uu sheegay inay jiraan dhibaatooyin loo maleegayo shacabka sidaa darteedna loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka qaybgalin dibadbaxan yaa la idin la wadaagi doonaa waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoog saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay waa roonay dadaal badan iyo waqti badan la bixiyay haddeerna nama cabsi geli karaan daacadu shaqadiisa soo wata inuu wadanka burburiyo ah annagana shaqadeena wadana inaan dalka badbaadino ah dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maartay waxyaabaha oo laga ganacsan kara kamid ma aha waxaan rabnaa in dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is ilaaliyaan cadawgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan annagana insha Allah ta'ala waxaan sida caadada ahayd isku dayi doonaa inaan annaguna xoog saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadino dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guryihiina jooga inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiigina laga faa'iideysanina annagana ha naceebeynina idinkana naftiina halaginina guryihiina jooga waa maasantiin wax hadda khasaaradana waa inta idin sheegnay 5 askari oo dhimasho ah 5 qof oo raydo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay annaga marnaba ma dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo cadow inuu niyajibiyo intaan annaga shaqada imaana dad kale Soomaaliyeed shaqadan soo waday innaga haddaan wadna dad kale naga dambeeyo Soomaaliyeed amniga inay ka shaqeeyaan wasiibada doonaan al-shabaab naga ma adkaa doonaan intay saas u qarxiyaan isla markiiba nadaafadaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan naga ma adkaa doonaan waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socoto wadada in la furo ay sideedii ahaato waa maasantiin
laakiin waxaa lagu wadaa in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho biri uu ka dhaco dibadbax looga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kaas oo maamulka gobolka Banaadir hore war uga soo saaray laakiin dhinaca kale warqad ka soo baxday wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu fasaxay banaanbaxan oo la qorsheynayo in magaalada Muqdisho uu lagu qabto. wasaaradda amniga Soomaaliya oo uu wasiirka ka yahay Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa shaacisay in la fasaxay banaanbaxa biri ka dhacay Muqdisho kaas oo ah mid lagu taageerayo ra'iisul wasaare Roble loogana soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga oo ku taariikhaysan 10 bishan ayaa waxaa lagu sheegay in banaanbaxan ay wasaaradda ka codsadeen golaha bulshada Banaadir isla markaana hay'adaha amniga ay amnigooda sugidooda ay banaanbaxayaashan mas'uuliyad ka saaran tahay. warqadan ayaana loo diray dhammaan hay'adaha ka shaqada leh dhinaca amniga. ugu dambeyntiina al-shabaab waxay sheegteen qaraxii ismidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lala eegtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo xubno kale. al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa barqadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho sida lagu baahiyay warbaahinta al-shabaab. al-shabaab ayaa sheegtay in qaraxa ismidaaminta ah ay la beegsadeen kolonyo ay la socdeen saraakiil cadaan ah isla markaana ay burburiyeen mid ka mid ah gaadiidkii cadaanku ay la socdeen. laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wali ay baaritaano ku wadaan qaraxan iyo sidoo kale waxyaabaha ku saabsan xogtiisa. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook iyo YouTube-ka Belan Radio waa naga intaas daawada aad ku maasantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka si gaar ah ayaan kaga mahadcelinaynaa. si aad noo dhiirigelisid fadlan boggeena like saar sina share garee muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro. mahadsanid daawada ee nabadgelyo.